salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya meediya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya meediya waxaa ka mid ah saddex ruux oo ka mid ahaayeen ergooyinkii soo xula xildhibaanada oo siyaabooyin kala duwan loogu dilay qaybo ka mid ah muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo weli kulamo ka wada dalka sacuudiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo soo xiray imtixaanaadka shahaadiga ee ka soconaya dalka puntland oo digniin ka soo saartay roobab daadad wata oo ka da'aya qayba ka mid ah deegaanada maamulkaas madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo magacaabay taliya ku-xigeenka booliiska maamulkaasi taariibayaal soomaaliya ay ku jiraan oo laga daabulo dalka liibiya la geeyana dalka talyaaniga iiraan oo ciidamo culus u jeedisa dalka sacuudiga iyo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo booqasho ku tagay dalka jarmalka waa habeenimo jimcaha sabdi ayaa soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay 30 May 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa wariyaha Nafis Xuseen Cabdi aad baad u mahadsan tahay Guleed Cumar Xasan saddex ruux oo ka mid ahaa ergooyinkii soo xulay xildhibaanada ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho Guleed Cumar Xasan ayaa eegayay warkaas dilalkan oo maanta siyaabooyin kala duwan uga dhacay qaybo ka mid ah caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa loo geystay saddex ruux oo ka mid ahaayeen ergooyinka xildhibaanada ku soo doortay magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soona doorteen xildhibaanada laga soo doortay dhanka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed dilalkan ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah degmada qaybo ka mid ah Madiina iyo sidoo kale degmada Hodan ee gobolka Banaadir Maxamed Sheekh Maxamed ayaa la sheegay in lagu dilay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaana ka mid ahaa xildhibaanadii soo xulay ama wuxuu ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka Cabdullaahi Maxamed Maax ayaa isaguna ka mid ahaa dilalka xubnaha loo geystay maanta waxaa lagu dilay xaafadda Zigaale degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa ergooyinkii soo xulay xildhibaanada Koonfur Galbeed waa xildhibaanada baarlamaanka ee ka yimid dhanka maamulka Koonfur Galbeed ugu dambeynna dadka la dilay waxaa ka mid ah Nuur Isaaq Ilay oo isaguna lagu dilay qaybo ka mid ah Madiina waxaana la sheegay inuu isaguna ka mid ahaa ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Beedhabo dilalkan ayaa mas'uuliyadooda waxaa sheegteen Al-Shabaab waray ku baahiyeen bogagga dhanka internetka ay ku leeyihiin ayay ku shaaciyeen magacyada iyo sidoo kale goobaha ay dilalkan ka kala geysteen ee ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxayna sheegeen in iyagu ka dambeeyaan mas'uuliyadda dilkaas loo geystay saddexdaasi ruux ee maanta lagu dilay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo xiray imtixaanaadka shahaadiga ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo uu weheliyo wasiirka waxbarashada ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka oo si guul iyo nabadgelyo ah ku soo dhamaaday ra-iisul wasaare Kheyre ayaa booqday xarunta Gaheer ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ka mid ah goobaha imtixaanku maalmahan ka socday si uu u ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanka uguna dhiirigeliyo inay sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada Kheyre ayaa ardayda Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay waxbarashada u rajeeyay guul waxa uuna ku booriyay in ay dadaalka iyo dulqaadka sii wadaan si hogaamiyaasha dalka uga mid noqdaan booqashada kadib ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay socdaalka ra-iisul wasaaraha iyo gabagabada imtixaanka wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre maantay wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaanteed waxaa sharaf u ahaa in uu soo sharfay prime ministerka uu kormeer nagala qayb galay maalintii u dambeysay imtixaanka aadaan uga mahadcelinaynaa aaday muhiim noo ahayd in prime minister ku yimaado maxaa yeelay hadalkiisa inta badan ardayda waxaa loo sheegaa inay yihiin madaxdii mustaqbalka maanta waxaan nasiib u yeelanay inuu tago prime ministerka fasalkii uu 4 sano wax ku dhiganayay arday imtixaan ku galayso meesha waxaa ardayda uga muuqatay in haddii fasalkan prime ministerku uu ka soo baxay iyaguna ay noqon karaan
prime minister iyo wax ka wanaagsan arrintii loo sheegi jiray ardada oo ahayd in mar walbaba ay yihiin mustaqbalkii wadanka maanta in uu si practical ah oo muuqato uu mataqaanaa ardada mithaal u siiyo runtii waa uga mahad celinaynaa prime ministerka oo runtii mar horena nagu taageeray naguna mataqaanaa korjeegteeyey imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidsiisii iyo diyaargarowgiisii iyo howlaha faraha badan oo la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahad celinaynaa imtixaanka shahaadiga ah oo sanadkan ay ka qayb galeen 31,258 arday waxa uu si isku mid ah uga socday magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka laga bilaabo 27 bisha shanaad 2019. Puntland ayaa digniin ka soo saartay roobab daadad wata ee ka da'aya qaybo kamid ah deegaanada maamulkaasi. Maxamuud Cabdinaasir Soofaysane ayaa qaadaa dhigaya. wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Puntland ayaa ka digtay daadad ay sheegtay in ay ka dhalan karaan roobabka guga ee ka da'aya deegaanada Puntland gaar ahaan gobolada Sool iyo Nugaal. qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu wargeliyay bulshada in ay ka baxaan dhulka hooseeya iyo meelaha biyo mareenka ah sida togaga oo ay ka dhalan karaan daadad. wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland waxa ay ku wargelinaysaa dadka degan deegaanada dhulkoodu hooseeyo meelaha biyo mareenka ah iyo togaga in ay ka digtoonaadaan daadadka ka dhalan kara roobabka da'ay isbuucan qaasatan gobolada Nugaal iyo Sool ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaraddaasi. sidoo kale wasaaradda waxaa wadayaasha gaadiidka ay ugu baaqday in aysan gawaarida ku wadin togaga biyuhu socdaan iyo in ay baabuurta joojiyaan xilliyada roobku uu da'ayo si loo ilaaliyo badbaadada rakaabka iyo hantida saaran. darawallada waxaa laga codsanayaa in aysan baabuurta ku dhex wadin togaga biyuhu soconayaan xilliyada roobka da'ayana ay baabuurta joojiyaan si loo ilaasho badbaadada rakaabka iyo hantida ayaa qoraalka wasaaradda sidoo kale lagu yiri. digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmahan dambe ay deegaanada Puntland ka da'ayeen roobab mihigaan ah oo meelaha qaar daadad xooggan ku celiyay inkastoo aan weli la soo sheegin khasaaraha ka dhashay daadadkaasi. madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulamo gooni ah la qaatay madaxda Carabta ee ka qayb galaysa shirka ka socda dalka Sacuudiga. sidoo warkaani mar kale ku eegayo Guleed Cumar Xasan. kulamadan oo ahaayeen kuwan gooni ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha ku weeliyo socdaalkiisa waxay la qaateen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wadamada Carabta ka soconaysa ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarram ee wadanka Sacuudiga. madaxweyne Farmaajo ayaa kulan dhinacyo badan taabanaya arrimo dhowr ah looga hadlay la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Abdullahi bin Nasir bin Khalifa Al Thani ayagoona ka wada hadlay xiriirka dowladda Qatar iyo Soomaaliya iyo waliba sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dowladood. ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ayaa ballanqaadyo dhowr ah u sameeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana sidoo kale isla meel dhigeen arrimaha fulinta ah ee dowladda Qatar ay ka fulinaysa qaybo kamid ah gudaha dalka Soomaaliya oo ay kamid tahay mashaariic horumarineed ee ka hirgelinaysa qaybo kamid ah dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Qatar uga mahad celiyay kulanka ku dhexmaray dalka Sacuudiga iyo waliba taageerada dowladda Qatar ee waqti waliba la garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale xubnaha uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya waxaa kamid ah madaxa golaha militariga kumeel gaarka ee dalka Suudaan sareeya guud Cabdi Fataax Al-Burhaan. labada mas'uul ayaana ka wada hadlay arrimo quseeyo xaaladda dalka Suudaan iyo isbedelada ka dhacay dalkaas oo hoggaanka u hayaan taliska militariga wadanka Suudaan wixii ka dambeeyay afgambigii lagu sameeyay madaxweynaha wadankaas Umar Al-Bashir. madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale mas'uulkan ka socday dalka Suudaan ayaana si gaar ah waxay uga wada hadleen arrimo quseeya xaaladda dadka Soomaalida oo ardada u badan ay ku nool dalka Suudaan iyo sidii aysan u saameyn lahayn arrimaha ka soo cusboonaada dalka oo ku aadan dibadbaxyada afgambiga dhaliyay ee ka soconaya weli qaybo kamid ah dalkaasi Suudaan dadkuna ay wax uga tabanayaan hoggaanka militariga iminka talada haya ee dalkaasi.
madaxa ku-meel gaarka ah ee dalka suudaan ee dhanka militariga ayaa madaxweyne farmaajo u ballan qaaday in si gaara loo ilaalin doono xaalada dadka soomaalida. waa siday noo sheegeen ila ku dhadhow madaxdii ka qayb gashay shirkaas labada mas-uul ku dhex maray magaalada maka al mukarama ee dalka sacuudiga. dhinaca kale madaxweynaha ayaana weli sii wada kulamada uu la qaadanayo xubnaha kala duwan ee ka qaybgalaya shirkaas, waxaana la filayaa in kulamadaas iyo shirkaba ay soo gabagaboobaan saacadaha nagu soo aadan. tahriibayaal ay Soomaali ku jiraan ayaa laga daabulay dalka Liibiya. Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakil ayaa qaadaa dhigaya warkaasi. ku dhawaad 150 ruux oo isugu jira qaxooti iyo magangelyo doon ayaa diyaarad laga qaaday magaalada Tripoli caasimada dalka u ah Liibiya iyagoo la geeyay magaalada Rome ee caasimada dalka Talyaaniga. waxaa arintaas furiyay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR sida ay sheegtay qaramada midoobay. dadka la sii qaaday ayaa ka kala soo jeeda wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia, Sudan. badankoodna waxay u badan yihiin kuwa u baahan xilligan baxnaano caafimaad waxaana haysata nafaqo darro. dadkaas dib u dejinta loo sameeyay waxaa ka mid ah 65 caruur ah, 13 ka mid ah da'doodu waxay ka yar tahay 1 sano jir. mid ka mid ah caruurtaas waxa uu dhalan yahay xilligan 2 bilood. dad badan oo quudareynaya in ay Yurub aadaan ayaa ku xayiran Liibiya. qaarkood waxaa lagu xiraa xarumo dadka lagu hayo oo xaaladoodu aad ugu liidato. xaaladda sidan haddii si ahaato way kasii daraysaa dagaalka ka socda magaalada Tripoli. Jean Paul Caffery oo ka tirsan hay'adda UNHCR oo ku sugan Liibiya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo daadgureen bini'aadanimo oo dheeri ah. tani ayaa imaanaysa xilli dad badan oo ay Soomaali ku jiraan weli ku dhibaataysan yihiin qaybo ka mid ah dalka Liibiya. madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska maamulkaasi. Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa eegaya warkaasi. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Hirshabelle Isaaq Cali Cabdulle, waxaana xilkaasi loo magacaabay gaashaanle dhexe Carab Yuusuf Nuur. wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu muujiyay in loo baahan yahay isbedel dhinaca amniga ah oo ka dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, si loo dardargeliyo howlgallada looga hortagayo falalka ka dhanka ah nabadgelyada. isbedelkan dhinaca laamaha amniga ah ee ka hana qaaday magaalada Beledweyne ayaa la filayaa in wax badan ay iska bedelaan nabadgelyada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo ay haatan ka dhacaan mararka qaar falal lidiga ku ah ammaanka magaaladaasi. Iiraan ayaa eedeymo culus u jeedisay dalka Sacuudiga. Iiraan ayaa ku eedeysay Sacuudiga inay kala qaybsanaan ka abuurayaan gobolka si ay ugu faa'iideeyaan Israa'iil kadib markii boqortooyada ay martigelisay kulan madaxeed ay leeyihiin hogaamiyaasha Carabta iyo Khaliijka oo lagu raadinayo taageero ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Sacuudi Carabiya waxa ay wadaa inay kala qaybsanaan ku dhex faafiso dalalka Islaamka iyo kuwa gobolka, taasi oo ah waxa ay jecel yihiin maamulka. waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Sayid Cabbaas Musafi ayaa niyad jab ka muujiyay in Riyaad ay weli wado eedeymo aan lahayn oo ka dhan ah Iiraan iyada oo ka faa'iideysanaysa martigelinta shirka Islaamiga. boqortooyada boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa maanta sii xoojiyay weerarada ka dhanka ah Tehraan isaga oo dalalka Carabta ugu baaqay inay ka hortagaan ficilada dambiyeed ee Iiraan. Sacuudiga ayaa magaalada Makka ku martigelinaya 2 shir oo ay kala leeyihiin dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka kuwaasi oo ka dhan ah Iiraan, waxaana ka qaybgalaya dhammaan dalalka Carabta marka laga reebo Ciraaq. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dalka Jarmalka. wafdi uu hogaaminayo xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ku tagay dalka Jarmalka.
wasiirka arrimaha dibadda ayaa magaalada Berlin kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha Jarmalka iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa inuu socdaal ku tago dalalka kale ee Yurub oo dhawaan galay doorasho baarlamaani ah. Mareykanka ayaa taageero u raadinaya gulufka dagaal ee ka dhanka ah Iiraan. waad ku mahadsan tahay daawashada warkayaga. fadlan subscribe channelka Warbaahiya Media.